waa tahay dhegaystayaal haatana waa qaybtii suugaanta murtida iyo maadda waxaa caawa marti noogu ah abwaanka weyn Axmed Salebaan Bidde oo hal abuuray riwaayado tiro badan iyo heeso kamida kuwa loogu jecel yahay heesaha Soomaalida wariyaha VOAda Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa abwaan Axmed Salebaan Bidde waraysigan kaga qaaday magaalada Hargeysa waraysigaasi iyo heesaha ku jira ayaanu dabcan ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska Washington hadan ku weydiyo dabcan meel weyn bay ugu jirtay riwaayado xilliga hore de bulshada Soomaaliyeed ay ugu jireen oo dhaqankii iyo fariintay siyaasi ahaan lahayd haday arrimo bulsho ahaan lahayd iyo haday ahaan lahayd caashaqba way gudbin jireen bal iga waran riwaayadaha as leedahay way ugu shacbiyada badnaayeen kuway bad ka xus kartaa riwaayadaha sameeyay horta been lama hadle kulay 40 way yihiin hadii aan wax dheereen laakiin inta aan dhigay ilaa 230 bay yihiin tiyaatarka ama isteejyada aan ka dhigay goobaha fanka laga dhigo dadweynaha aanu dhigay oo midna aanay noqonin wax hoos u dhaca mid walba heer sare ay noqotay haddaba riwaaduhu waa kala jaade dadku wuxuu u yaqaanaa caashiq iyo qosol iyo wax aynkaas ah maaha waa general knowledge baa la yidhahaa cilmiga meeldhaxaadka ee adduunyada u dhexeeya baa la yidhahaa filmaanta ama riwaadaha marka qof waliba wax badan buu ku helayaa oo riwaadihii hore dee haddii aad ka daawato muraayadda wixii muraayadda lagu qabtay beri ilaa hadda la xiisaynaya dadku marna xiisay u qabeen berigii hore markii dambana waxay u barteen si rasmi ah inay wax uga daawadaan ama maad ama murti ama macno kale uga helaan marka labada goorba way jireen markii hore aan go'aan ka caamay riwaayadii walaalaha Hargeysa dhigi jireen riwaayado qaali bay ahaayeen sidii riwaayadii Kalamaan riwaayadii Cantari Cibla riwaayadii gabadhii baxsatay riwaayada inkaas oo iga horeeyay aniga oo Xuseen Aw Faarax iyo Ismaaciil Axmed iyo nimankaas ay sameyn jireen maxay ahayd ama heesii Yuusuf Xajaadan iyo Maxamed Ismaaciil Basarce barkhadaas iyo ay sameyn jireen ama Saxardiid iyo Cali Sugulle oo iyana naga horeeyay arigaasi uu sameyn jiray riwaayado yaab leh oo imika markaan xusuusto dhaqan ah oo ayay ahaan nadiif oo Soomaaligooduna waa weyn yahay anaga kaayagii aan ka soo gaarnay xitaa ka sii waa weyn yahay ayuu ahaa annaguna qaybtii labaad baan ahaynoo aniga iyo Horiyo iyo Cabdiqays iyo darag badan oo aynkaas Maxamed Andar iyo hadii badalkii Xasan Garay oo markii dambe soo gaaray iyo hadan dhinac kale ku weydiyo fanaaniinta dad waaweyn oo fanka ku caan ahayd sida Xaliimo Khaliif Magool heestii dhabtu jacaylku yaala hees ay kamid yihiin bad u dhigtay bal heesta dad badan baa xiiseeyay oo iyadoo imika fanaaniin kala qaada xilligan baan maqlay oo wala say kala dambeeyay bal heestaasay ku timi ma heesta waxay ku timi riwaayada waxa la yiraahdaa dad wadaaj qurbo maxaa duul isu keentay dad wadaaj qurbo maxaa duul isu keentay waxay ahayd waatan marka wadan la tago ee loo shaqo tago ee petrol laga helo cid waliba timaada markaasaan idhi adigu maxaad ahayd Hindistan adiguna maxaad ahayd Pakistan adiguna maxaad Afghanistan adiguna maxaad Azerbaijan adiguna maxaad Suudaan adiguna maxaad ahayd South Africa adiguna maxaad Senegal adiguna maxaad Soomaali adiguna maxaad Yemen adiguna maxaad waxay noqdeen kala WhatsApp waana meeshii shaqadii waa lagu badan yahay marka qasabada la qoriyaa ceelal baa la sameeynayao dariiqyo la sameeynayao station cusub la sameeynayao forman baan biyaha oo ma ka shaqeyn jiray meel dibada marka dadka isu yimid kulankiisa ayaan tabeedna qasadii ka soo qaaday dad wadaaj qurbo maxaa dool isu keentay deegayagan carabta petrolku gangimay gaaliya muslim ay soo gacalsaday rag soo galay oo galaan darino gibla jira maan ya guulaha rabbiyo gargaar walba adiga gargaarka haye ilaahu gacansi kuwa go'an waxay ahayd dad aan shaqeynayno la oran jiray haw dhaqaajin meel ay dhaabay saaxdaan waxa lagu sugaa raajiciska shaqada marka la doonayo markaas ay qoladan ilaahay kaygan carabta petrolku gangimay gaaliya nacab la isu garabsaday ya soo galay oo galaan darin waayo rag badan baa ku jiray heesii ugu cadcada hadda heestan ku soo xuseen riwaayada ma ku keenay dab jacaylku yaala iyada maxaad ku xulatay jacaylku dhabtu yaala ya uu ku dhayahay
دع الخسارين ضربتني ملبكوا دع الخسارين أنكو دويو مرنا أنكو دحي أبيقون حديران أنكو دويو مرنا أنكو دحي أبيقون حديران बादगी पूरा इतकू डमे याद हम लोसा कदीर थे وحق الدماتية إفكادي من يولون لمودا السماية نبتو شعيكو يا نبتو شعيكو يا haddee waxaa jiray maxamed axmed kuluc hees uu dee caan ahayd oo sida geed caleen loo ubaxd guudka qariyo heestaasoo kale qisadii ku timi maxay ahayd iyadu qisadaasi waxayd qiso jacayl bay ku timi qofdii la ammaanayay gabadhii la ammaanayay ayay ku timi waxna loo sheegayay markaa gabadhu geed ma haddii farasna ma aha laakiin wax waa tusaale dadku si qaar ba waxay u qaadanayaan markaad wax tilmaamayso waxaad sheegtay inuu qofkii aad ka dhigayso sida geed caleen iyo baxguudka qariyeen oo gooni laamaha ay midaba geesteed oo baanis gaadhiga guntumida leedahay oo soo gandoodo galab faraqa soo garay ugadan barwaaqo durduraan guriga gacan wili ku yaala oo gooyo jilaal midab guurin baato gabadh yahay kalgacal baad goortaan ku eegaba qalbigayga gelisa wax saanan garanayn iyo kuna daacasho ka halkaadi gaarsiin waxsi aanan garanayn ii guunaday caashiqay halkaad ii gaarsiin toddobaadkan dheerbad fan ku jirto nin de 40 sameeyo waliba xilliga ugu de jacaylku Soomaalida u baaxadegayay bad waliba aad la soo kulanto de xilliga 70-aad waxa la yiraahdaa dadka oo dhan de waxa ku dhacday jacayl badan adigu horta bariyaha in jacayl ma kugu dhacay ma aha aniga webi igu horeeyay waanu igu dambeeyay waanu igu dambeeyay wallahi niyo way man kad waxa la yiri jacaylku ma baabo waa laga bogsadaana waa been adii xiliyada ku dhacay markaa wallahi niyar baan ahaa barbaar baan ahaa niyo marka dabcan ma iscalmateen mise waa maya waanu iscalmanay laakiin ismaan aan calfan markaa cida kala noo dhaxeeyay dabadna beri dambe ayaan nasiib isku helay marka muddo intee la kadib kulanteen 22 sano axmed salaam bida inta badan waxa jirta heestan leexo oo inta badan caan ka noqotay dhulka Soomaalida di waxa loo nisbeeyaa aadan cabdullaahi cusmaan madaxweynaha hore Soomaaliya inay sababtay xitaa ilaa xilka degistiisii horta bal hadda turxaan saartid ma isaga loo qaaday mise si kale maya waanigan kula fadhiya aniga ilaahay marag beenadeed looma qabsado
aadmigiisana marag been looma sheego ma gabadhii markii ku oran jiray 22 sanadood dabadood baan loo ismehersanayo waan wada noolahay jacaylku naga dhaxeeyay aan ku wada waa gabadh laga maarmaano sidaas un baa ana calafka ilaahay igu daray ayaa la iga guursaday berigaas dabadeedna sheekadu waxay ahayd sheeko hinaase yaa hinaase iyo ammaanta dee talada waa ka mid ay isugu jirtaba marka wax aadan cabdille cismaan alla naxariistii jannaha siiye ku saabsan oo arrintaa ku jiray ma ay jirin hadda maxaa dadku ugu qaateen baad isleedahay maxaa keenay heesta oo markii hore waxaanu siinay shamis abakar na maxamed baa jiri walaal aniga iida isla markaa dadka naxariista badan moogtay badiba waxay jiri walaal siiya heesta iyada fanka ku cusub markaa fankay soo gashay dabadeedna ismaaciil cabdigari allahu naxariistay u tumay aniga iyo sooraan iyo huriyana waanu joognay meesha nimanka heesta watay baan anaa sameeyay heesta ila radio hargeysa baa heesta lagu shubay markii dabadeedna muddo ay socotay heestii oo dalabaadka ku jirtay ayaa hiba maxamed waxa loo bedelay xamar dabadeedna heesteedii xaggaasay haddana dalabaadka ka gashay markii ay xagga dalabaadka gashay iyadoo muddo socotay ayaa foodkii soo galay dabadeedna arrin baarlimanku leeyahay ayaa nin soo galay oo la oran jiray gobdoon soo galay ninkii arrinkii soo galay waxay noqotay dee wax la kala qaadayaa mooye waxay ahayd mooye ileen maaragtay wax la doonaya wax caddaanayaad sheegto waxa dhacday adigu gobdoon bay xaajadii soo gaadhay dabeedna gobdoon markii foodkii laba dhacay tii u dambaysay ayuu leestii leexa saaray kolkaasaa la yidhi aadan baa loola jeeday baarlimankuna malaa hugfus buu u jeedo waxbaa la kala waxmada adigu arrintii baa huwahaa laga bilaabay marka gobdoon aan baarlamaanku ka tirsanamaya reediyo muqdisho ayuu ka tirsanaa macnaa wariyaasha reer muqdisho wasaaradda iyadu ahaatee waan gartay markaa dee isagu ma saaray si alla inuu isaga saariyo si kale war uma hayo laakiin isu qaataba qoorta loo geli ayay ka dhigeenoo baarlamankii ayaa markiiba arrintii la kacdo yidhi aadan cabdillah cismaan baa loo saaray halkaasoo ku dhacay waa kaas aadan cabdillah cismaan mar rames aragteenoo ama ma lagu weydiiyey arrintaas beriga xilliga arrintaas waa la i weydiiyey inta la yimi idaacadda hargeysa ayaa qolada wardoonku ay u yimaadeen mustafa xaji nuuro idaacadda haysto ooba heestaa taariikhdayda ka warrama bay dhahay dabeedna anigaa la yeer dabeedna xabiiskii baan imi bal heestaa ka warran baa layidhi ka warramay baan anigu heestaa niyo gabadh baa liiga guursadayoo ninka gabadh iyo xaalkeedu soo galay yar wareeraana waddada gaadhiga yaalla ee iska taagan isagaa jiiro wejiga ku dhuftamaan marka anigaa leecadaa silata adiga maxaa ku helay bay dhah gabadhii baa laiga guursadayoo gaadhi iska jiira taagan yaan anigu jiiray baan halku gaadhigu iga jiiri lahaa dee madaxama ku dhufta waan dhaqramay baan dhakhtarkaaban tegi baan waana run waa waraaqdii baaban tusimaan hadaad bata dee nimankii jaantay wadheen qosol wixii run bay noqdeen dee ereyadeedii bal in yar ma naga maqashin kartaa caawa inagoo lamaana ah iyo lama naf qaybsile talageed ku laasho adigaa islumiyo isu loogay cadowgoo libintaadii siiye libaanteed adduunyada ruuxna laasan maaye maxaa loray naftaadii inakoo lamaanayo laba naf qaybsile taloogeed ku laashe adigaa islumiyo isu loogay cadowgoo libintaadii siiye waadigan seliite leexadu ku sidatee xad ballaan cuskanaye waadigan seliite leexadu ku sidatee xad ballaan cuskanaye libaanteeda duunyada ruuxna laasan maaye maxaa luray naftaadii waxaa jirtay alcayn oo kale xilli aad ku sugnayd ayaad fariin ama hees u soo dirtay khadar daahirsan filayo oo ay heesi qaad bal sheekada iga horreyn iyada say ku timi sheekadaasi waxay ku timi kiisii baa waraaqii soo qortay aniga iyo khadar daahir iyo axmed cali cigaal baanu nahay bay tidhi waxaad noo soo dirtaa 3 heesood dabeedna anigoo saxare ka soo rawaxay oo meel saxaraa jooga ayuun baan gurigaygii furay goorfiida waan soo tukaday
telefishinkii aan furay waa micraajkii nebigun baa la dhacaawo halkaasna calayhi salaatu wasalaam dabeedna dabadaan iska fariisto iska gogladay telefishinkaygana waa iska daawaday kabankaygii yar koodhkaygana waa soo qaatay dabeed halkaasaan hees ka bilaabay saddexdoodiyana midba hees siiyo heestan axmed cali cigaal uu qaaday uu dhahdo waa laysu soo noqon wixii nool adduunyada yaan ugu horraysiiyey heesta labaad waxay ahayd heestii ay qaaday maxay ahayd khatra daahir khatra baa qaado waxaa la idhaahdaa sidii ruuxu galay shabeel ama la shiray shaashlaha libaax shakiyey markii aan ku waayey shantaa dhaban baan hayaa sidii markabkii shuwaaloo shalayta yimi shicmada soo ragay xariir xalaytana socodka shubay shakiyey markii aan ku waayey shantaa dhaban baan hayaa aniga waxaan ka soo qaaday nin waddankiisii yimi oo markab in badan ka shaqaynayay oo waddankiisii in badan arag dabeedna uu markabkii dekadii yimi berbera dabeedna shixmadii laga rogay dabeedna ilma dalkii inaad ku hadhi ise markabkuu dhaqaaqaya waad raaci oo calool laba bogleeyey ayaan iska dhigay ilaa dalkaygii dagaal baa ka socda anigana calooliyeyska iga socda gunaanadkeenu haddaynu soo gabagabayno oo gunaanad ku nimaadno bal dadweynaha halkan kaa dhegaysanaya mashriq ilaa maqrib meelo badan baa lagaa dhegaysanaya waqti badanna waa lagu baado dadka dhegahoodu dee way ku magaranaysaa hees jacayl haddaad caawa isalada ku nasi maxaad caawa ku nasin lahayd waa la isu soo noqon wixii nool adduunyada aqalabiga nadiife naruurada la dawra kuma anicin kumana nicin naxalina kumagaadine sookii nabigu yidhi haddaad noloshaga wadaan nabadgala ee hajira إلى الدور نالدو يدويا نوريو حريري نوريغا وچيغرا نوريغا وچيغرا نالدو يدويا نوريو حريري نوريغا وچيغرا نوريغا وچيغرا qalbigaaga nugulkiyo nawada ibliiskiyo nacasibaada ka ogo anigiyo nasiibkuna naftadan umaqanay nasawrdada gaba waa tahay dhegaystayaal haatanna waa qaybtii suugaanta murtida iyo maadda waxaa caawa marti noogu ah abwaanka weyn axmed salebaan bidde oo hal abuuray riwaayado tiro badan